bilaabay wasiirka wasaaradda beeraha Maxamed Xaaji Cismaan iyo dhammaan ka soo qayb galayaasha maanta waxaan isugu nimid ansixintii ugu dambeysay siyaasadda horumarinta beeraha iyo sharciyada abuurka ama sharciga shinida labadanba waa laba siyaasadood ama laba document oo aasaasi u ah horumarinta beeraha wata koowaad siyaasadda horumarinta beeruhu waxa weeye waa documentkii inoo tilmaamayay halka aynu u marayno horumarinta beeraha ee aynu higsanayno waxay leedahay 6 tiir oo ah kobcinta ka faa'iideysiga khayraadka dhulka Ilaahayna siiyay wanaajinta agro inputiska ama qalabka aynu isticmaalno wax soo saarka kobcinta suuqgeynta dhismaha awoodda wasaaradda adeegga ay beeralayda u qabato iyo kor qaadida kartida wax soo saar ee beeralayda markay sidaa tahay runtii waxa weeye waa haga fiican bay noqon doontaa hadda kadib mashaariicda beeraha iyo beeraha lagu horumarinayo aynu ku tilmaansano inoo haga ka labaad waxa weeyaan waa sharciyada seedka in badan baa waxa laga cabanayay tayada seedka inkastoo wasaaradda horumarinta beeruhu aanay soo gelin dalka seed aanay hubinin marka laga yimaado xuduudaha bariga oo runtii reportka iyo deked kastoo wadanka wixii abuura ama abqaale ee ka soo dega wasaaradda beeruhu way hubisaa tayadooda marmar baa waxa dhici karta in xuduudaha dhulka oo alaab fara badan ay ka soo gasho aadna u furan inuu ka soo galo si uu dhici kara laakiin sida kale seed kastoo wadanka soo galaya wasaaraddu way hubisaa haddaba xeerkani wuxuu naga caawinayaa maxaa seed wadanka mamnuuc ka maxaa soo gali kara ee la isticmaali karaa heerkee seedka lagu ansixinayaa qofkii seed xun lagu qabto maxaa xeeray nooga yaala maxaa laga yeelayaa see loo gubayaa marka runtii waa xeer aad iyo aad muhiim u ah dee laba khubaro aad u waaweyn baa soo diyaarisay runtii wax badan inay ka dhiman yihiin filimaayo intiina khubarada joogtaan ra'yigiina inaad ku beerin doontaan baan rajaynayaa waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha si uu officially idinku furo dabadeedna wixii dooda ay insha Allah ka dhiibataan aynu siyaasadana saa ku soo gabagabayno intaa kadibna aynu ku wareejino wasiirka oo aynu wasiirka golaha wasiiradana geeyo baarlamaankana geeyo wasiirkeenu intaa wixii uga dambeeya magan insha Allah uga nahay wasiirkeenu ku soo wareejinaya si uu noogu furo maantana wasiir marka xaqan anaga naga soo dhamaato qolada technicalka baashu xaqaaga imanaysaa anaga way naga dhameystiranta hadii la yiraahdo